kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dunida dacaladeeda naga soo gaaray. Halkani waa Wadaagsin Production oo aad kala soconaysaan wararkii ugu dambeeyay. Labada ugu doorka roon ee aan maanta idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo u yeeratay safiirkeedii dalka Kenya. Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si kulul uga hadlay faragelinta dowladda federaalka iyo waxa dhacaya haddii la qaban waayo doorashada. waxaan xog idinkaga haynaa madaxweynaha galmudug xaaf oo ku gacan seeray dalabkii farmaajo. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo qaatay go'aan yaab leh oo wada hadal ka galayo xuduudaha Puntland. waxaan xog idinkaga haynaa sidee ayuu ururka Ahlus Sunna uga ciyaar siyaasad badiyay ra'iisul wasaare Khayre iyo dowladda federaalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Khayre oo mar kale ku celiyay hadalkii beesha Saleebaan ka careysiyay iyo banaanbax looga soo horjeedo oo ka dhacay magaalada Cadaado. intaas daawadayaal waxay ahaayeen war wixii dalka gudihiisa naga soo gaaray. wararka dibadda ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah maleeshiyada Xuutiyiinta oo diyaarad ku duqeeyay garoon ku yaala dalka Sacuudiga. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen warka madaxdiisii. haddana waxaad ku soo dhawaataan isagii oo fidsan. dowladda federaalka Soomaaliya oo u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa degdeg ugu yeeratay inuu dalka ku soo galo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan xilli ay ka sii darayso xiisadda u dhaxaysa labada dal. go'aanka loogu yeeray Tarsan ayaa daba socda cabasho wasaaradda arrimaha dowladda Soomaaliya u dirtay dhigeeda Kenya kadib markii qoraal soo dhigay Twitterka wasaaradda arrimaha dibadda Kenya uu Somaliland ugu yeeray dal. war-saxaafadeed shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaddii shalay ay wasaaraddu u yeertay danjiraha Kenya ee fadhigiisu yahay Soomaaliya LT General Lucas Tumbo. wasaaradda ayaa war-saxaafadeedka ku sheegtay in danjiruhu gacanta loo geliyay warqad cabasho ah oo ku aadan fariinaca Twitterka oo sida ay wasaaraddu sheegtay oo xadgudub ku jiray kaas oo 27 bishii June oo qoray Mr. Machiru Kamau wasiirka koowaad ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul uga hadlay faragelinta dowladda federaalka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi dheer siiyay idaacadda VOA ayaa ka hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wax laga weydiiyay xiriirka xun ee u dhaxeeya dowladda dhexe maamul goboleedyada ayaa marka hore sheegay in wax xun aan la rajayn balse uu rajaynay inay isku soo dhawaadaan dowladda iyo maamulada isla markaana ay wax kasta wanaag ku socdaan. Xasan Sheekh ayaa qiray in xilligan uu kala shaki ka dhaxeeyo dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada wuxuuna sheegay intaasi xilligani aan loo baahnayn isla markaana xal waara laga gaaro cabashooyinka ka soo yeeraya maamul goboleedyada ka jira dalka. Xasan Sheekh ayaa sheegay in mas'uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dowladda dhexe oo laga rabo inay si wanaagsan ula dhaqato maamul goboleedyada. taas beddelkeeda wuxuu sheegay in dowladdu ku hayso maamulada faragelin iyo caburin joogto ah. madaxweynaha galmudug xog aan idinkaga haynana waxay sheegaysaa inuu xaaf ku gacan seeray dalabkii farmaajo. madaxweynaha galmudug ayaa diiday inuu aqbalo codsi kaga yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo oo ku aadanaa doorashada dhawaan ka dhacaysa galmudug. xaaf oo Muqdisho soo gaaray Axaddii ayaa la kulmay Farmaajo waxaana loo soo bandhigay laba qodob oo mid u yahay inuusan isku soo sharaxin doorashada dhawaan la filayo inay ka dhacdo galmudug iyo kan labaad oo ahaa inuu dowladda kala shaqeeyo inay dhacdo doorashadaas. xaaf ayaa aqbalay qodobka labaad ee ku saabsan la shaqeynta dowladda dhexe ee dhanka doorashada hase yeeshee wuxuu ku gacan seeray kan ah inuusan isu soo sharxin. sidaan xogta ku helnay xaaf ayaa madaxweynaha u sheegay inuusan codsigiisa ku aqbali karin kulanka balse go'aankiisa uu waqti siin doono isla markaana uu si rasmi ah u shaacin doono waqti kale. waxaa jira heshiis maaliyadeed oo ay horey ugu ballameen dowladda Soomaaliya iyo xaaf kaasi oo ku saabsanay inuu xaaf aqbalo inay doorashadu u dhacdo waxaana xaaf oo dalbaday fulinta ballanqaadkaas kahor inta aan loo gudbin qodobka ku saabsan is sharxidiisa. sidee ayay Ahlus Sunna uga ciyaar siyaasad badisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo dowladda federaalka? xog dheeraad oo ka soo baxay heshiiska ay gaareen ra'iisul wasaare Khayre iyo kooxda Ahlus Sunna ee lagu qorameynay ciidamada kooxdaas ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta Wadaagsin Production u sheegay inuu heshiiskan uu yahay mid Ahlus Sunna kaga siyaasad badisay markaasna marka la eego habka loo dhigay uu yahay mid wax walba sidooda ahaan doonaan balse ay Ahlus Sunna ku heli doonto lacag. heshiiska ayaa lagu sheegay inuu yahay in Ahlus Sunna ay ciidamadeeda iyo hubkeeda haysan doonto balse magac ahaan la hoos geyn doono dowladda si ay mushaar ugu hesho. waxay sidoo kale la isla gartay in la taliyaasha hadda maamulay ciidanka Ahlus Sunna ay sidooda u joogi doonaan laakiin taliyaha guud laga soo magacaabi doono Muqdisho. taliyaha imaan doona ayaa lagu sheegay inuu noqdo shakhsi caqiidadiisu wanaagsan tahay taas oo macnaheedu yahay inuu noqdo taliye aaminsan caqiidada kooxda Ahlus Sunna xulashadiisuna ay qayb ku leedahay. sida aan xogta ku helnay Ahlus Sunna ayaa heshiiskan gashay iyada oo qorshaheedu yahay in ciidankeedu ku jooga magaca dowladda federaalka ay si dowladda dhexe ay u bixiso mushaarka ciidamada. Ahlus Sunna ayaa sidoo kale diiday in ciidamada kale ee dowladda ee guutada 21aad lagu soo diro ciidamadeeda. isku soo duuba waxay u muuqataa in Ahlus Sunna ka ciyaar siyaasad badisay Khayre oo arrimo badan oo dowladda aan dan u ahayn ogolaaday si uu u xaqiijiyo in safarka gobolada dhexe aan lagu qeexin
mid fashil kusoo dhamaaday. weli waxaan ku jirnaa wararkii galmudug ee ra'iisul wasaare Khayre oo mar kale ku celiyay hadalkii beesha Saleebaan ka careysay. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa mar kale magaalada Dhuusamareeb ku sheegay in doorashada madaxweynaha galmudug ay ka dhacayso magaaladaas isla markaana ay ku guuleysatay. waxa uu sheegay in wadahadaladii uu tagay deegaanada galmudug iyo wada tashiyadii ay guuleysteen isla markaana dadka reer galmudug ay yihiin kuwo jecel dowladnimada isla markaana uu ku amaanayo. maalmahan waxaan socdaal ku maraynay deegaano ka tirsan galmudug waxaana wada tashiyadii aan la qaatay madaxda iyo bulshada galmudug isla qaadanay in doorashadu ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb waxaana isugu tagi doonaa Dhuusamareeb bulsho kala duwan si loo dhisay galmudug midaysan ayuu ra'iisul wasaare. habeeno ka hor ayaa markii ra'iisul wasaare Khayre uu Dhuusamareeb ka sheegay in doorashada iyo shirka dib u heshiisiinta galmudug lagu qabanayo Dhuusamareeb ayaa waxaa si cad uga soo horjeestay odayaasha iyo waxgaradka magaalada Cadaado kuwaas oo sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu uga baxay ballan uu la galay. xaaladda galmudug ayaa weli xasilan iyadoo ra'iisul wasaare Khayre uu weli ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb waxaana dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegeen in xalka galmudug uusan ahayn mid dhow. wararka naga soo gaaraya Cadaado ayaa sheegay inuu halkaas ka bilowdo barnaamij xoogan oo looga soo horjeedo hadalkii ra'iisul wasaare Khayre kaga dhawaaqay Dhuusamareeb oo ah inay magaaladaas ka dhacayso doorasho. haatan Garowe madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xalay khudbad ka jeedinaya xuska ka wada Luuliyo ayaa sheegay in wada hadallo la galay maamulka Somaliland oo khilaaf xuduudeed kala dhaxeeya Puntland hadii dhankooda laga helo. madaxweynaha ayaa sheegay in Puntland ay wada hadal diyaar u la tahay cid kasta oo Soomaaliyeed hadii ay koonfur ahaan lahayd iyo hadii ay waqooyi ahaan lahaydba si loo dhameeyo khilaafaadka jira. haddii ay tahay waqooyi hadii ay tahay galbeed cid kasta oo diyaar ah in aan la hadalno diyaar baa u nahay in aan la hadalno. sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa dowladda federaalka ugu baaqay inay dhexdhexaad ka noqoto doorashooyinka dowlad goboleedyada galmudug iyo Jubbaland si uusan uga raacin magacii xumaa ee ka raacay doorashadii koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan aad u rajaynayaa inay uga fiirsato in magacii xumaa ee meelo ka raacay una dib dambe u raacin oo ka istaagto dhexdhexaad. waxaa kale oo galmudug iyo Jubbaland ugu baaqay inay wax ka bartaan doorashadii Puntland oo si xor ah loogu tartamay isagoo uga digay in xoog wax lagu raadiyo. intaas waxay ahaayeen war wixii dalka gudihiisa naga soo gaaray. haddana wararka dibadda maleeshiyada Xuutiyiinta oo diyaarad ku duqeeyay garoon ku yaala dalka Sacuudiga. maleeshiyada Xuutiyiinta ayaa mar kale duqeyn culus ka geystay garoon diyaarado oo ku yaala gudaha dalka Sacuudiga. Xuutiyiinta ayaa duqeeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha oo ku taala koonfurta dalka Sacuudiga oo hogaamiye u ah isbahaysi duulaan ku qaaday dalka Yemen oo ay awood ku leeyihiin Xuutiyiinta xiriirka la Iiraan. sida ay wakaalada wararka tibinayaan 9 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyntaasi waxaana dadka dhaawacmay u badnaayeen Sacuudiyaan. ciidanka isbahaysiga Sacuudiga oo warbixin ka soo saaray duqeyntaas ayaa sheegay in 8 kamid dadka dhaawacmay yihiin Sacuudiyaan halka hal qof kalena uu watay baasaboorka dalka India. Al Masira oo ah telefishinka kooxda Xuutiyiinta ayaa tabiyay inay duqeyntaasi qaadeen kooxdan isla markaana loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen war wixii dalka dibadiisa iyo gudihiisa naga soo gaaray. halka aad kala socoteen warbixintani waa warbaahinta wadaagsin production oo fadhigeedu yahay magaalada Balebusle. fadlan daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay aad halka timaadid subscribe saaro kana mid noqo saaxiibada wadaagsin. mahadsanid inta aan warkaan iyo war ka xiiso badan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.